iyada oo imaatinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Laascaanood uu yahay xadgudub badheedh ah oo ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tallaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi habib al-aali al-qadri adiim al-jaahi wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdaarihi al-adiim. warmurtiyeed ka soo baxay shirka golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirka golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabsoomay maanta oo ay bishu tahay 16 bisha Abriil sanadka 2025 waxa uu si adag u cambaaraynayaa tallaabadii daandaansiga ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku tagay magaalada Laascaanood 12 bisha Abriil 2025 taasi oo ahayd xadgudub ka dhan ah qawaaniinta caalamiga ah iyo madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo ka duulaysa qorshaheeda nabadeynta deegaanada deegaanka bariga Sool waxa ay hore u cilaamisay baaq nabadeed maalintii uu xilka la wareegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Dr. Ciro 12 Diisembar 2024 waxa aanay mar kale adkeynaysaa in ay nabaddu tahay mudnaanteeda koobaad iyada oo difaaca qarannimada Soomaaliland tahay xuduud lama taabtaan ah. qodobka koowaad ee ka soo baxay shirka golaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda Soomaaliya waxa ay si buuxda uga leexatay jidkii nabadda iyo wada hadalka. dowladda Soomaaliya waxa ay si cad uga baxday dariiqii nabad ku wada hadalka ku wada noolaanshaha iyo wada hadalka iyada oo imaatinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Laascaanood uu yahay xadgudub badheedh ah oo ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. tallaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyadoo lagu tuntay xeerarka caalamiga ah iyo xorriyadda muwaadiniinta Soomaaliland oo si sharci darro ah loo aftuubay. qodobka labaad inaanay jirin wax wada hadal ah oo haba yaraatee ku saabsan siideyn maxaabiis ah. xukuumadda Soomaaliland waxa ay si cad u sheegaysaa inaanay jirin wax wada hadal ah oo dowladda Soomaaliya kala yeelatay arrimaha la xiriira siideynta maxaabiista uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya geeyay magaalada Muqdisho ma aha maxaabiis dagaal prisoners of war. xukuumadda Soomaaliland waxay u aragtaa tallaabadaas inay ahayd mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee haysta dowladda Soomaaliya. qodobka saddexaad iskaashiga caalamiga ah ee isdhaafsiga maxaabiista iyo doorka ICRC ay ku leedahay. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay wada hadallo la yeelatay hay'adda caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ICRC iyo danjirayaasha dalalka saaxiibka la ah si loo xalliyo arrinta maxaabiista iyada oo ku salaysan xeerarka iyo habraacyada caalamiga ah ee maxaabiista. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay diyaar u tahay inay maxaabiista la isu weydaarsado hannaan kasta oo waafaqsan nidaamka isweydaarsiga maxaabiista. buddhigna ay u tahay hay'adda ICRC iyada oo ay xukuumadda Soomaaliland hore ugala hadashay arrimaha maxaabiista wadamada ay saaxiibka yihiin sida Mareykanka, Ingiriiska, Denmark, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. iyada oo maxaabiistu ay noqon karto laba dal oo maxaabiis kala haya, dal jabhad gudihiisii maxaabiis ka qabsato, kooxo hubaysan oo maxaabiis kala qabsan kara. intaba waxa ka odayeeya oo dhaxgal sameeyay si maxaabiista loo sii daayo hay'adda ICRC habraac international oo caalamiyana loo maro. qodobka afraad baaqa Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku wajahan beesha caalamka. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay cod dheer ugu baaqaysaa beesha caalamka in ay si degdeg ah uga falceliso xadgudubka ay dowladda Soomaaliya ka geysanayso deegaanka bariga Sool ee Somaliland. isla markaana ay taageerto dadaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jirto soo celinta nabadda deegaanka bariga Sool. duulaanka qorshaysan ee Soomaaliya ku soo qaaday Somaliland waxa uu khatar gelinayaa xasiloonida Geeska Afrika wuxuuna fursad siinayaa kooxaha xagjirka iyo argagixisada taasoo halis weyn ku ah nabadda iyo horumarka gobolka oo dhan. ugu dambeyn qodobka shanaad ee ka soo baxay shirka golaha wasiirada Soomaaliland murtiyeedkiisu waxa uu dhigan yahay wada hadalladii u dhaxeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya. maadaama ay dowladda Soomaaliya si joogto ah ugu kacday xadgudubyo ka dhan ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mabaadi'da wada hadalladii hore u dhexmaray labada dal, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay go'aamiyeen in laga baxo wada hadalladii lagula jiray Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay Abriil 16 2025. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an difaaca qarannimadeeda iyo adkeynta madax bannaanideeda si aan gorgortan lahayn.